السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالا كسو دوادا سيتوغ اكاديمي مقعيق وعبد العزيز على نور فضلا هداد كل عصبتها channel كينا سبسكرايب ده فيديو وانا لايك صار علامات جنباليل كان فرو سي اد مر والبا u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawada casharada aan soo gelino channelkan waxaan channelkan soo gelinaa cashiro electrical circuit ah iyo cashiro iyo fiidiyoyo la xiriira arrimaha bulshada sida dhalinyarada iyo waxbarashada maanta waxaan ka hadlaynaa short circuit and open circuit waxay ka dhigan tahay haddii aad labadooda fahamtid adiga oo fahmay ujeedka ama practical ahaan maadada la yiraahdo koronto waxa la yiraahdo koronto inaad fahamtay waayo korontadu inay wax disho waxa u keena short circuit korontadu inay ku shaqeey weyso ama light ku shidmi waayana waxa sababa open circuit macnaha korontadii oo aan soo gaarayn lightkii ama qalabkii markaas korontada ku shaqeynayay waxay sababaysaa open circuit ayaa sababay waa inaad raadisid marka meesha korontada ay ka furantay sida darteed aad xirtid waa sidoo kale short circuit qof ayaa koronto ku dhigtay ama koronta meel ka kacday sida darteed waxaa sababay short circuit waxay ka mid tahay khataraha ugu badan ee ay dhaliso korontadu waayo wax kasta oo korontada keento oo dhib ah waxay dhacaan short circuit haddii short circuit uusan jiri lahayn ama aysan short circuit uusan dhici lahayn wax khatar ah korontadu ma lahaan lahayn sidoo kale waxaa jira dhowr qalab ama boqolaal qalab oo la soo saaray si looga hortago short circuit marka waxay ka dhigan tahay haddii aad fahamtay short circuit aad fahamtid open circuit aad fahamtid inaad fahamtay muhiimadda korontada si practical ah marka la socod wanaagsan sidee bay u dhacdaa short circuit sidee bay u dhacdaa open circuit ayaan ka hadlaynaa waxaan ku bilaabaynaa short circuit waxaa la dhahaa circuitka waa qayb ka mid ah circuitka korontada laga sameeyo ama isku xirka qalabka korontada ku shaqeeya ama qalabka electricalka ah oo la isku xiray qayb ka mid ah waayo qaybtaas ka mid ah oo aan lahayn wax caabiye ah wax resistor ah ma lahan macnaha korontadu short circuit waxaa dhaliya current ku dhacday shay aan xamili karin macnaha shay aan xamili karin haddii current ka awood badan ay ku dhacdo meeshaas in korontadii qarax ka dhaco ama korontadii ay shil ka sababto ayaa dhici karta sida darteed waxaa la yidhaahdaa short circuit marka haddii ay jiraan korontadaas wax ka caabinaya ama caabis hadduu jiro ma dhici karto short circuit sida darteed short circuit waxaa la dhahaa meesha resistorkeedu oo zero yahay ama waxa currentiga ka caabinaya ay zero yihiin tusaale ahaan waxaan soo qaadanay circuit yar qaybtan waxaan dhahnay waa source waayaan dhahnay s u qaado source waaye sourcegan waxaa ka soo baxaya laba fiilaa ka soo baxaysa labadaas fiilo mid waa positive midna waa negative midna waa plus midna waa minus sidaa darteed haddii labadoodu saanay u furan yihiin haddaan iskula xiro fiilo kale soo qaato ee plusta ku xiro negative plusta ku xiro minustan aan ku xiro waxaa ka dhalanaysa labadoodii in qarax ka dhasho ama labadoodii korontada ee caadiga currentiga ee caadi ugu gudbo oo ay weliba marto currentigii sourciga oo sax ah macnaha motora wuxuu dhalinayay ama generator wuxuu dhalinayay current ah 400 oo ampere u dhalinayay 400 ampere u dhalinayay sida darteed currentigaas haddii laba fiilo iskula xirtid motorkii ku soo laabanaysa currentigii si short circuit midda ka tusaalaha ka fudud haddii aad adiga qofka bini'aadanka fiilo positive-keeda iyo negative-keeda aad qabatid labadooda isla qabatid adiga fiilaa la mid tahay conductor aad tahay ama basic conductor aad tahay korontadii way kugu soo gudbaysaa negative-kii aadaysaa wax adiga resistor ah oo iska caabin ah ma lihid resistorka bini'aadanka aad u yaryahay sida darteed fiiladan aan ku xirnay waxay u dhigantaa good conductor ay u dhigantaa sida darteed currentigii source ka soo baxay toosuu intuu soo marayaa toosuu usoo marayaa resistorkaas zero laga wada marka waa kana intaan ku caddayn waxaa lahay voltageku wuxuu lamid yahay current oo lagu dhiftay resistance haddii resistorkii uu zero yahay currentigii voltagekii zero soo baxaysa
sidoo kale waxaa la dhahaa currentigu wuxuu la mid yahay infinity. tusaale ahaan currenty waxaa lagu helaa voltage oo loo qeybshay resistance. haddii voltage loo qeybsho 0 meesha waxaa ka soo baxaya infinity aa kasoo baxaysa. infinity waxa waaye maximum current, macnaha si practical markii laga hadlaayo maximum currentiga haddii inta 10 ampere ay soo baxaysay, macnaha source uu soo saarayo 10 ampere, 10 ampere inta maraysa. laakiin maximum current waxaa looga dan leeyahay, macnaha infinity waxaa looga dan leeyahay waxaa waaye in lagu tuso in currentiga ugu badnaay oo meesha marayo, currentiga ugu badnaay maadaama aan iska caabin jirin inay current ugu badnaay marayso. sidaa darteed waxaa la dhahaa short circuit. qodobka labaad oo aan ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa open circuit. open circuit waxaa waaye hadda meeshii positiveka ahayd iyo meeshii negativeka ahayd haddii aan la isku xirin wax currenti ah ma gudbayaan. sidaa darteed currentigu waa zero. waxay ka dhigan tahay resistorka meeshaas maraya ayaa very high ah. macnaha very high marka lagu leeyahay waa infinity qiimihiisa. macnaha ilay tusaale ahaan haddii fiiladan hadda aniga aan dhexda kala jaro, xaggan aan positive ay tahay xaggan negative ay tahay, intan dhexda ay maqan tahay, positiveku currentiga oo wado uma soo gudbi karto, negative uma soo gudbi karto. ilay waa meel bannaan, medium caadi oo bannaan ayaa ka dhexeeya. sidaa darteed isma soo gaarayso fiiladii. resistancegeedu marka aad u badan yahay meeshaas, marka resistancegii infinity ayaa loo qeybshay, macnaha voltage aa loo qeybshay infinity, waxaa soo baxaysa 0. tusaale ahaan haddeeto voltage aan waxaa u qaybinay 0 waxaa soo baxay infinity, haddana voltage aan waxaa u qaybinay infinity waxaa soo baxay 0. sida markii voltage markii tiro loo qeybsho 0 infinity usoo baxdo ayaa markii infinity tiro loo qeybsho infinity waxaa usoo baxay idina 0. waa ila fahansamaan. haddii marka aan soo koobo hadalka, open circuit waa circuitka leh resistance aad u badan. haddii currentiga aad haysatid iyo resistancega ay badato, resistancegu aad u bato, macnaha aad uga bato oo uu tirtiri karo currentiga, uu celin karo totally ahaanba uu celin karo, meesha waxaa la yidhahdaa open circuit. hadhow waa arki doonaa sida oo u shaqeeyo. macnaha meel waxaan ku dhahaa high resistance waay, waxaan ka wadaa short circuit, macnaha open circuit waay. haddii marka short circuit halistiisu aaday u badan tahay, short circuit ou dhaco wax kasta oo koronto ay sababto ama koronto macnaha ay qarax samayso waxaa sababa short circuit. sidaa darteed waxaa la isticmaalaa boqolaal qalab ayaa lasoo saaray oo markii short circuit ou dhaco looga hortago si koronto isku damiso ama aysan dad wax u gaarsiin. marka intaas ayaan kusoo koobayaa maanta. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashada videogan. saboortigiina, caawinaadiina, garab istaagiina waa waxaan u baahannahay. ujeedkeenna, hadafkeenna fog waxaa waaye in aan helno meel ardayga Soomaaliga ah asagoo gurigiisa joogo oo ka ogaan karo macluumaad kasta oo ku saabsan cilmi kasta oo adduunka jira. macnaha cilmi kasta oo adduunka jira markaan dhahayo macnaheedu ma ahan in aan aniga cilmi kasta oo adduunka soo gudbinayo, ma aha. laakiin waxaa waaye in qof kasta oo Soomaali ah oo wax bartay aan samayno meel weyn oo ay dadku ku kulmaan, oo dhallinyaradaas wax barata aan iskugu keenno, kadibna wixii ay barteen ay kusoo gudbiyaan. hadafkeenu intaas waay. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.